Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janalka tiknoolajiyadda iyo talo bixinta ee Lajaan Online. Waxaan sharixi doonaa haddii Allah uu ogolaado casharkeena saddexaad ee barashada aaladda scientific calculator-ka. Casharkeena saddexaad maanta ciwaankiisu wuxuu noqonayaa sidee scientific-ga loo geliyaa fraction, sidoo kale tiro fraction ahayd sidee decimal looga dhigaa, sidoo kale tiro decimal ahayd sidee looga dhigaa mixed fraction ama tiro horgala leh. Waxaan meesha ugu dambeysa ku qaadan doonaa haddii Allah uu ogolaado sida round off loogu soo sameeyo adigoo isticmaalaya scientific-ga tiro. Haddii aan bilaabno, marka aad rabtid inaad fraction gelisid scientific-ga, waxaad taabanaysaa calaamadda fraction-ka, kadibna waxaad gelinaysaa tirada sarreeyaha geliday, kadibna kaasarka isticmaalaya qaybta hoosaad, haddana nambarka waxaad gelinaysaa hooseeyaha, kadibna waxaad taabanaysaa kaasarka dhinaca midigta ah, tiradii calaamadda aad isticmaalaysid ama plus minus ku dhufo ama qaybtii aad isticmaalaysid. Kadibna waxaad isticmaalaysaa calaamadda fraction-ka muujinaysa, kadibna waxaad gelinaysaa tirada kaasarka adigoo isticmaalaya. Kadibna waxaad taabanaysaa equal, tiradii waxay kugu soo bixi doontaa tiro fraction ah. Okay, haddii aan rabo tiradan inaan decimal ka dhigo ama tiro dhibic leh aan ka dhigo, waxaan taabanayaa SD, kadibna waxaa ii soo bixi doonta ayadoo dhibic wadato. Haddii aan rabo tiradan ama nambarkan ii soo baxay in aan ka dhigo mixed fraction ama tiro horgala leh, waxaan taabanayaa shift, kadibna waxaan taabanayaa SD, kadibna waxaa ii soo bixi doonta ayadoo fraction ah oo tiro horgala ah wadata. Okay, waxaa noogu xiga qaybta kale, sidee tiro decimal ah oo dhibic leh round off loogu soo sameeyaa ama loo soo duubaa oo 1 decimal place, 2 decimal place iyo wixii ka badan loogu soo duubaa. Round off haddii aan wax yar sharaxno, tiro dhibic leh ayaa waxaa la rabaa godka u dambeeya inaad soo duubtid haddii 5 uu ka weyn yahay. Godka aad soo duubaysid kan ka horeeya ayaa la soo buuxinayaa adigoo isticmaalaya kii dambe labadooda. Okay, markaan rabo inaan tiradaas decimalka ah aan rabo inaan sameeyo, waxaan sameynayaa tiradii aan rabay ayaan gelinayaa oo ah tusaale ahaan 45.895. Markii aan rabo tiradan inaan soo duubo round off ku soo sameeyo, waxaan taabanayaa shift, kadibna waxaan taabanayaa mode-ka, kadibna waxaan taabanayaa number 6 oo ay ku qoran tahay FIX. Number 6 markaan taabto, kadib waxaa ii soo bixi doona FIX 0 ilaa 9 oo laga wado tirada aad rabtid inaad u soo duubtid 1 decimal place ilaa iyo 9 ayaa lagu ogolyahay. Waxaan taabanaynaa 1 decimal place, kadibna tiradan waxay noogu soo duumi doontaa hal god tirada saddexda ah oo hadda dhibicda ka dambeysa. Kadib waxaan taabanayaa equal, kadibna waxay igu soo baxday ayadoo fraction ah. Kadib haddii aan rabo inaan decimal ka dhigo, waxaan taabanayaa SD, kadib waxay igu soo duubantay hal god